Fanaanka caanka ah ee lagu magacaabo Cawaale Aadan ee reer Jabuuti ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya la filayaa inuu ku qabto show inaba aan caadi ahayn. Daba showgaasi halkee ayuu ka dhici doonaa? Yaase ka qayb gali doona? Fanaaniin badan oo Soomaaliya isla mar ahaantaana reer Muqdisho ah oo ka soo muuqday bandhigga lagu shaacinayay showgan. Haddaba yaa ka mid ah weydiimaha iyo kuwa kale ayaan saaxiibayaal muuqaalkeenan ku qaadaa dhigi doonaa. fadlan muuqaalka like garee oo la wadaag saaxiibadaada. ku mahadsanid daawade. kulanti haboon saaxiibayaal meel kasta oo aad dunida daafaheeda aad ka joogtaan ku soo dhawaada channelkeenan Ducaysana Media oo aan muuqaalkan ku qaadaa dhigi doono showga inaba aan caadiga ahayn oo uu qabsan doono fanaanka caanka ah ee lagu magacaabo Cawaale Aadan isla mar ahaantaana ka dhici doona magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Fanaanka caanka ah ee lagu magacaabo Cawaale Aadan ayaa waxaa lagu wadaa in 9 bisha soo socota uu magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya uu ku qabto show inaba aan caadi ahayn oo aan loo kala harin. kadib shaacintii maanta uu shaacinayay fanaankan caanka ah ee lagu magacaabo Cawaale Aadan bandhig faneedkiisan ayaa waxaa dhammaan fanaaniinta reer Muqdisho iyo qaar ka mid ah dhalinta ugu caansan TikTok waxa ay kulan qada sharaf ah ugu sameeyay hotelka caalamiga ah ee Elite ee magaalada Muqdisho. showga fanaanka ayaa waxa uu ka dhici doonaa hoolka lagu magacaabo Sahal ee ku yaala wadada aada ee Boorka ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Cawaale Aadan ayaa waxa showgan ku wehelinaya xaaskiisa misana ah fanaanada caanka ah ee lagu magacaabo Mrs Xiis iyo Cawaale Aadan ayaa waxa bandhig faneedkan ay ku qaban doonaan hoolka lagu magacaabo Sahal ee magaalada Muqdisho. iyadoona sidoo kale muuqaalkii ay ku shaacinayeen bandhig faneedkoodan ay qayb ka ahaayeen fanaaniinta reer Muqdisho oo ay horboodayaan Khalid Kaamil iyo sidoo kale fanaaniin kale oo ay kamid ahaayeen Shaadiye Sharaf iyo sidoo kale fanaanada caanka ah ee lagu magacaabo Maryun Maanka iyo fanaaniin kale oo iyana reer Muqdisho. waxaa sidoo kale muuqaalkan ka soo dhex muuqday bahda baraha bulshada qaasatan aaladda TikTok ugu caansan qaar ka mid ah waana dhalinta reer Muqdisho. iyadoona sidoo kale muuqaalkan lagu shaaciyay showgan iyo sidoo kale qaabka uu dhici doono. noo balana 9 bisha insha Allah inta kale isaga sheegaya horta bismillaahir rahmaanir rahiim horta waan wada mahad celinaya aniga caawa farxad bay tahay oo maanta inaan la qadeeyo Yacko iyo Baabaji iyo asxaab kale oo fara badan oo magaranaysaay in hablaheeni aan TikTok ka daawanayay dhamaantood oo Miss Wall iyo joogan ma sha Allah Sumaya iyo ay wada joogan ya Retouch sax Retouch wixii aan qaldamay qabtaya iyo wali waa sheeko kale iyo teamkiisana waa taageero buuxaan u ahay madaxana waa ninka si salaaxanaya waa sheeko kale aan leeyahay iyo nin culus iyo dhamaantood waxaan leeyahay horta waad mahadsantiin dhamaantiin aniga sharaf weyn bay tahay inaan maanta marti sharafkaana wada qadayno inta markaan xagga kaga gudbo insha Allah ta'ala maalinka ciida waana showgayga ugu horeeyay waana ciidayda ugu horeysay aan ku qaadanayo Muqdisho. halis weeye ruuxu jacayl tabtayo helaye jifaleeli maayo hurdada uu ka haajiriye aniguna intaasaan haboon haybileeyahay war showgani waa sheeko kale aan ku. haddaba sidoo kale waxa uu sheegay in tigidhada laga heli doono dhammaan goobaha lagu kala iibiyo tigidhyada markii show lagu qabanayo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. iyadoona sidoo kale la qorsheeyay in 9 bishan uu ka dhaco 9 bishan haatan in soo aadan uu showgan ka qabsoomo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya qaasatan hoolka weyn ee lagu magacaabo Sahal. hoolkan ayaana ah hoolka ugu weyn markii la fiiriyo bandhig faneedyada markii la qabanayo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. muuqaalka la garay oo la wadaag saaxiibadaada. ku mahadsanid daawade.